gadan kuwa garowa iga gadan iga badan kuwa galisor naga badan iga mudan amaan gaara kuwa gadalo magalo geesiyaasha galmudug. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba caalamka meel walba aad ka joogtaan iyo waqti walba ay idin tahay wacan halka aad nagala socotaan ama aad naga daawanaysaan waa channelkiina siriicad ku soo dhawaada mar kale iyo video hor leh. aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina iyo waqtigiina qaaliga ah ee fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay oo ay tahay marka ugu horeysa aad nala kulanto ama aad soo martana subscribe saar kambalelkana furo si aad mar walba u hesho muuqaaladii ugu dambeeyay adigoo ka sheekeyn karana yaa lagaaga sheekeen. maanta waxaan idiin hayaa oo run ahaantii aan la wadaagi doonaa farxadda walaalkeen Sharma Boy. dhib kasto iyo dhibaato kasto oo adduunyada ku soo martaana mar walba waxaad ogaataa Ilaahay waxa uu kaaga daba marin karaa waxyaabo badan oo aad ku faraxdid oo niyadaada iyo maankaagaba ay ku dagaan. sida aad sawirkan ka arkaysaan waxa uur loo yeeshay ama uur loo leeyahay ama loo uuraystay Sharma Boy, fanaanka qarniga, fanaanka run ahaantii ay Soomaalida aad ay u jeceshahay oo ay u muujiyaan mar walba garab istaag iyo in ay mar walba dhinaciisa ay yihiin Soomaalina ay aad u taageerto. Sharma Boy ayaa waxa uu soo bandhigay amaba uu beejka uu leeyahay ku soo bandhigay xaaskiisa oo uur leh isagoo run ahaantii ku soo qoray postigan aad arkaysaan sheegayna in adduunyada wixii Ilaahay uu bixiyo waxa ugu qaalisan ay tahay uurka ama ubadka. waana dhab run ahaantii waxaynu ku leenahay walaalhan bariyo Ilaahay ha kaaga dhiga mid adiga iyo Soomaali weyn intaba anfaca insha Allah taala. reer siriicadna waxaan rajaynayaa in ay taasi kala qayb qaadan doonaan oo ay maaragtay mar walba ay noqon doonaan kuwa ku hambaliyo ku garab istaago kuna damqada. run ahaantii mid kale aan jeclahay in aan idin la wadaaga ayaa waxa ay tahay waxaa jirtay hees dambe oo soo baxday oo walaalkeen Shukababa oo u soo qaaday. run ahaantii qalad mar walba hadii lagu saxana sidaanu ka warhayno qeyr kama imaanayo oo maanta meesha aanu taaganahay ama dalka uu marayo waa meel run ahaantii aarsi iyo ka jarasho iyo qof walba dhibka loo geysto oo argudusho ahaan u sameeyay ayaan meesha aan hadda taaganahay aan ku gaarnay. adduunkan aad arkaysaan runtii wax walba waa ay ka dhacaan oo qofka bini aadamka ahi waxaa jirto in isaga oo sax ah ama wadadiisa saxda iska haysto ayaa waxaa soo galayo dad iska dhibaateynaya oo run ahaantii adigaba aadan garanayn wax allaali waxa ay qofkaasi ku haystaan. marka haddii aad u soo diyaar garowdo adiguna markaaga in aad aarsato ama aad dhibka lagu geysto mid la mid ah aad ka falceliso run ahaantii qofka kuu geystay iyo adiga isku mid ayaa tihiin waayo wax aad usaataan ama aad ku kala runtihiin ma jirto. isaga qalad ayuu ka galay adiguna qalad ayaa ka gashay. marka haddii aan la isku tanaasulin oo wanaag aan la isku muujin run ahaantii waxaan qabaa in aynan waxba isbedel iimaanaynin in ay qofka bini aadamka ihi ayna waxba horumar ay sameyn karin maadaama aad aarsi noloshaada aad wada gelisay ayaan ula jeedaa. fanka Sharma Boy run ahaantii waxa uu ahaa mid mar walba markii ka dambaysa ku sii talaabsanayo horumar iyo yacni hididiiladii oo nolosha uu ka lahaa mid ayar ugu sii dhawaanayo ama ku sii dhawaanayo ayuu ahaa walaalkeen Sharma Boy. waxa soo dhaxgalay run ahaantii sidaan ka wada warhayno qalaasay yar oo kalifay in uu isla buuq maskaxdiisa ay sameysay oo shil ku galay run ahaantiina ay meeshaasi ku geeriyootay. Allah u naxariistay gabar walaasheen oo shilkaasi ku waxyeelooday marka ama ku dhimatay. Allah u naxariistay. markii taasi dhacday kadib rafaad iyo dhibaato badan oo maray kadib waa uu soo baxay maanta oo waa qof xur ah. marka uu soo baxay kadib waxa dhacday in uu sameeyay heesab badan oo waliba ilaa iyo tiro laba ah
oo uu ku karbaashayo qof walaalkii ah ama si kale wax uu qaadayo. marka waxaan jeclaan lahaa in kulley Sharma Boy waxa uu ka mid yahay asxaabta ku xiran janalka. inta badanna waxaan annaga ka hadalnaa ama aan sheegnaa in nolosha ay ka ballaaran tahay meesha markaasi laga filayo. qofka bini'aadamka ah waxaa hor yaalo nolol aad u qurux badan, waxaa hor yaalo mustaqbal aad u qurux badan. waxaa qurux badan marka in aadan ku istaagin meeshaasi oo aad ka gudubtaa wax walba oo caqabada oo markaasi ku soo mara. waxaadna uga gudbi kartaa in aadan dib u sii eegin wixii ku soo maray oo aad hore eegtid, maadaama ay hiigsigaaga uu yahay in aad hore gaartid. waxaa kaloo arkayay dadka qaar soo qorayay ama sheegayay in isaga iyo Maslax Mideeye ay isku dhacsan yihiin. horeyna waxaan in badan aan u sheegnay in ay walaalo yihiin, ayna yihiin laba fanaan oo isla jaan qaaday, isla fahmay, isla daansi ah, yacni in badan isa soo xushay. haba soo kala daahaane in ay noloshooda ay yihiin laba qof oo isku baahan oo haddii ay isgarab istaagaanna ay wax badan samayn karaan. marka waxaynu idiin cadaynayaa in aysan isaga iyo walaalkeen Maslax Mideeye aysan wax dhibaato ah aysan dhex oolin, oo ay niyadoodii iyo maankoodii isku san yihiin, maadaama inta dhibka uu ku jiray oo dhan uusan ka tagin Maslax Mideeye Garowe ayuu joogay, Garowe ayuu dadaalka ka waday. dadka waxay jecel yihiin in ay dadka walaalaha iska hor keenaan mar walbo. dadka qaar weeyaan, dadka oo dhan yaanan dhihin, dadka qaar waxay jecel yihiin dadka walaalaha isku qalbiga ah, isku wanaagsan, noloshooduna ay meel u wada socoto, in ay kala reebaan ayay jecel yihiin. marka waxaan idiin cadaynayaa inaysan jirin wax khilaafaadna oo u dhaxeeyo labadaasi qof. waxaa kaloo aan jeclahay in Ilaahay wax walba oo jira markaasi oo samaan ku dhameeyo, inay noqdaan dadka dad walaalo ah oo aanan waxba kala taban, oo aanu dhib dhex oolin biidnillaahi alkariim. wax walba oo soo marayna Sharma Boy waxaan kula talinayaa halkaasi inuu kaga haro heesihiisa ay dadka ku barteen ay aadka ugu jeclaayeenna in oo wadadeeda dib ugu soo laabto si oo hiigsigiisa u sii gaaro. dhanka kalena hadaa ku soo laabto awlaada iyo uurka uu soo zaa'iday, farxadeeda waxaan jeclahay inaad kala qayb qaadataan oo aad ugu hambaliyeen doontaan. run ahaantiina aad fiidiyowga sii share gareyn doontaan, gaarsiin doontaanna isaga si uu u arko in aynu nahay dad qalbiga iyo maskaxda intaba ka taageersan iyo dad ku faraxsan horumarkii uu sameynayo walaalkeen. waxaanu leenahay Allah ku barakeeyo uurka, wax walbo aad jeceshayna Allah kaaga sahlo oo adigana ku wanaagsan. waxaan Ilaahay kaaga baryaynaa in sida aad jeceshahay ay wax walbo ku ahaadaan, qalbigaagana aad nadiif ka dhigto biidnillaahi alkariim. reer Sariicaad aad baad u mahadsantiin idinkana. intaan fiidiyowgan mid la mid aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa fi amaanillaahi isaarag dambo oo xiiso leh.